festa dibkina maraysta dambalkaygu waa baaqe leftiisu waa guule daliyaha kacotoosa dibkii xargaha goosta dhidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dacaadiidku waa daale dawrtada ka weynaada festa dibkina maraysta dambalkaygu waa baaqe leftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay californiya dhayton minnesota soo dhaafa nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay californiya dhayton minnesota soo dhaafa kastaba kasoo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaanta daruura ku soo dhuunta doolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena dhan kastaba kasoo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo marka dhabidabteed gaadho marka tala dhanaanaato markuu dhaanku iman waayo dalal kale dhex joogooda duumaha saliidooda dheg xaramka weedhooda dhiiranida gacantooda misna kala dhinantooda haw xilan dhalalbeen marka dhabidabteed gaadho marka talo dhanaanaato marka dhaanku iman waayo sahankeenu dheeraado daraariya ka badan qaato dhaalkii la filanayay dhagaxdii bisleen weydo marka dhidarku caalwaayo dhulku uu huwado ciiro marka dhidarku caalwaayo dhulku uu huwado ciiro dhirka sareebta kugu fuulo hadna dhuumo tala maaha dhagahaaga xidho maaha dhufayskaaga aan maaha dhibaatooyinku muuqda sheedaha ka dhowr maaha tv-ga dhuga maaha sareebta kugu fuulo hadna dhuumo talo maaha dhagahaaga xidho maaha dhufaankeeye ilaa waadu dhalateene dhaxalkiini bayaane dhulka hooya soo aada dhaleecada ka jira beesha ilaa waadu dhalateene dhaxalkiini bayaane dhulka hooya soo
dalkaygu waa baaqe naftiisu waa guule dhaliyaha kacotoosa dhidibkii xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dambaalkaygu waa baaqe naftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo nabiibyaysan حقي وحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا waxay wax marayaan wadadii waa aragteen oo waxay ka soo bilaabatay kilomitir 00 oo ah magaalada Ceeldaahir hadda waxaan joognaa kilomitir 17 intaas waxa la soo sameeyay buuxintii carakaawada embankmentii baa la dhahaa waxa ka horeeyay sarfeygii oo la soo sameeyay hadda waxaan soo buuxinay waxaan joognaa kilomitir 17 waxaanu joogtaa carab buuxintu kilomitir 20 iyo 8 banaantii waxay maraysaa magaalada Cawsano oo ah ilaa kilomitir 11 cawsare haddaad joogtaan banaantii u jirtaan waxaan u jirnaayo 9 kilomitir bay baran tahay waxaan u jirnaa 60 kilomitir mashruucan sida u socdo haatan inta aan ku soconayna gaariga xawaarihiisa 100 ka badan baa ku soconaynay meelo qaar waxaa muuqanaysa in aad loogu diyaariyay intaan soo aragnay dhowr 20 kilomitir in la saaro marka ma waxaa sugaysaan inta magaalooyinka ka gaaraysan baa laamiga soo biloomaya mise qalab bay iga dhiman waxaa sugaysaan marka qalabkii in laamiga soo bilowdaan runtii waxaa naga dhiman qalab aad u badan oo ay ka mid yihiin qalabkii jayga ay ka mid yihiin qalabkii bituminka dhigayay waxaan rajaynaynaa si dhaqso badan inuu noogu yimaado qalabkaasu qalabku markuu yimaado hadduu yimaado bishan gudaheeda waxaanu ka soo bilaabi doonaa kilomitir 00 oo waxaanu soo wadanaa qalabkii jayga waxaan dhigaynaa jaygii oo laayirka saddexaad ah iyo basementigii oo ka sareyn doona saas bay ku soconaysaa shaqada qaybna hore bay ka soconaysaa banaantii embankmentigii baa soconaya qaybna waxay noqonaysaa in la soo wado jaygii injineer adigu maadaama khabiirada ka mid tahay hawshan ku lug leh maxay tahay nooca baahi ee idin jira maxaad dalban lahaydeen wadada Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan maxaa ka dalban lahaydeen dadka khusaysan maxaad weydiin lahaydeen maxaa dhinacyada ixtiraam ugu baahantiin waxaan u baahanahay hadda ugu baahan waxa weeye qalabka macdanaadka oo ah birta culus in aad loo soo badiyo si shaqadii dhowr meelood uga socoto waxaan kala rajaynaynaa insha Allah taageero hiliyo ah ma la keeno qalab waxaan u baahanahay taageero niyad ah oo ka iman doonta shacabka Puntland kuna wajahan wadada Ceeldaahir Ceerinka maalintii intee shaqaysaan maalintii mashruucan sida u socdo shaqaysaan maanta waa jimce dad badan ma joogaan laakiin gawaaridii waa ka shaqaynaysan inta badan shaqo badan ma socoto maadaama ay jimce tahay maalmaha kale ka waran sida u shaqaysaan maalmaha kale waxa la shaqeeyaa waxay bilaabataa shaqada 6 aroornimo ilaa waxay socotaa 5 galabnimo waa mashruuca qore ee Puntland ka socda ee la soo galay 6 ilaa 5 galabnimo waa mashruuc aad loogu harga oo isku tashi aad loogu hagar baxay aad baa maasantahay Cabdiqaadir Sanka ayaan la kulmay oo kamid ah farsamo yaqaanada iyo dadka ka shaqeynaya halkan Cabdiqaadir maxay qabataa adigu bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan ahay nin graderista ama level tore ama hadba sidii u yaqaano isku dayid af Soomaali inaad ku sheegtid waxa weeye grader waxa weeye grader nin walba waa fahmi karaa waa level farsamo yaqaanada injineerka ninka kaliya naqshada u dhiibo oo wadada dhiganaya wadada aad soo marteen ninka soo sameeyay baan ahay madaxa gaadiidka birta culusna waan ahay wallahi shaqadu waxay u socotaa si xawliya oo aqligaaga aan geli karin bay u socotaa ragguna waxaa lagu soo xushay imtixaanaad oo laga wada qaaday raggu intan ma ahayn waa ka badnaa 600 oo qof waa dhamaayeen waxa ka soo baxay in yar oo nadiifa oo howl kara marka wadada hadda waxaanu maraynaa 17 kilomitir ama 17 kilomitir leenkana anaa bixiyo hadda waxaan marayaa Cawsana waxay jirtaa 2 kilomitir baran waxay ii jirtaa 62 kilomitir bay jirtaa leenkaas oo surveyga markuu bixiyo anigana aan naqshada ay siiyaan aan sii qaadayo marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inta hay'ad iyo lagu ordahayo iyo samafalayaal inaan anagu isku filanahay sababtay taa marka 25 senti aan
ka jaro moobeelkayga ama $1 aan ku daro boos bay buuxinaysaa laakiin qofka bini'aadanka hadduu ku xisaabtamo meeshaan waxa galahayo inuusan asaga lahayn inuu ku xisaabtamaa fiican inuu mustaqbalka wiilkiisa isaga u aayo xaaskiisa xaruusan in ay wadada marayaan annagu run ahaantii waxaanu ku shaqaynaa markaanu isu fiirino waagii hore waxaanu ku shaqayn jirnay tabarucaad biilkeena iyo waxaana oo hawlaheennana waan ka helnaa aad baana ugu faraxsannahay inaan macno aad baa maasantay cabdiqaadir aad maasantay cabdiyare hawsha sida u socota بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا marka hore waxaan u mahad celinayaa jaamacadda Baraan u sheegaya dhammaan Soomaalida meel kasta ay joogto inuu mashruucan yahay mashruucii ugu horeeyay oo laga bilaabo ceel daahir ceel gaaba Soomaaliya oo 200 oo kiiloomitir oo dhow ah marka feeskayga hore waxa weeye ceel daahir insha Allah taala Baraan oo 90 kiiloomitir hadda kiiloomitir 20 ayaan joognaa dadkooyadana soo dambeeyno si maraysaa aad ayaan ugu faraxsanahay shaqada tan aanu hayno oo aad ayaanu yacniga ugu faraxsanahay xaqiiqiyan waa tahay injineer Muuse Khadar ayaan la kulmay injineer Muuse Cali Abukar ayaan la kulmay see wax u socdaan injineer والله الحمد لله رب العالمين شكرا واقع ماشي نمد الله هذا اللي جوجو وحنا موقض وشقو habeen iyo maalin waxaan diyaar u nahay dadka walaalahayga oo jidka loo sameeyo ayaan macadaadka sacweeyay iyo maalin ayaan wax u taaganahay saasan filtarada iyo oolyada u daadinayo boolkii dibco yaan ugu dhafrayna macnaha howlkarnimo ayaan muujinaynaa annagoo ku tashanayna xoogaani iyo fikradayna iyo raggii maartay nagu dhiirigeliyay maad yaan u celinaynaa howlahaas aan wadnaa oo birta culasa waa makaanig tarbiilista alxamdulillah anigoo waa 3 bilood bishaniya إن شاء الله لا عوصنا أنا وهذا ولي ما تقول لك وضدي وين نوتكتي واحد دبت ولي ما تقول حاجة عندنا عسلاك واحد تجينا قلب كبا حد مد مال يجوا هاستك كجرا قبل كم ماشي يقول عم مد ما ينكسي هو إذا مد ما مسي تجا كوة تجا قاري قاطع عوصنا وتا واركا برت هذا كسو كان جونا إلى 4 كيلومتر مركا أرد كاسا كجرا بور كاسا نحتاجنا نن يعني أي مد ما عيار عمر كاس نوت جوجا لحنا يا 6 سنة مرة يا وأنا مرينا نن 4 سنة جوجا أنا كقبرت بدنا marka insha Allah taala garab iyo ho iyo heel waa ugu baahna ta kale dadka noo arkayo ama noo arki doono waxa ka codsanayna labiska Sacuudi kaga nimid iqaamadii baan ayaa kansal sameeyay laana maadaama loo sameeyo ceel daahir ilaa iyo ergaabo la isku xirayo inaan ka qaatam guul iyo magac 94 baa meesha ka cararo Sacuudiga galay iqaamadii baan daayay ilaa ay helaan qoladan wadooyinka aan ka soo shaqayn jirnay khibrada aan u leenahay marka guul baan rajaynayna insha Allah taala waan ku guuleysanay inta noo dhimanna ragga meesha keenay baa u sheegnaa in war qalabka badiya oo spare parts-ka ii keena qalab baa xaqiira meesha dhagax baa la jibinayaa marka insha Allah taala 9 kiiloomitir rabnaa inaan magac ku yeelano madaxweynaha iyo ku xigeenadiisa baarlamaanka shacabka mahad baan u celinaynaa ayna waa u ducoonaynaa ma garatay wadadaas sidaas xawligaas noogu socotaa saacada aan soo galno waa 6 ilaa iyo 12 duhurnimo la joojiyaa 2 duhurnimo galaa shaqada waxaan ka baxaa 12 duhurnimo buufis iyo sameyn iyo boolooji gala 2 iyo 10 waa ka baxaa 8 saac bar way macna darawlinta habkiin la dhameeyay u dhibna socda wada dabada qarqaada war socda kana iga dhimo filter ana xiraya dhag unug baa gala waa ka u jeeda saaka jimcaha tahay meesha waa ku soo kalaanay meeshaas aan ugu dhacays saasan filteradaas waxa u wadnaa qashikaas daba ordayna oolideeba ku jirnaa marka insha Allah taala mashruucana waa mashruuc ugu horeeyay in ay ku guuleystaan ayaa xataa fuujirkeena u kansalnay ma garatay marka insha Allah taala waa qeyr baan rajaynaynaa waqti dhowna inaan ka baxno qalabka noo yimaado labada buuroodna waa dhamaanayaan magacaaga Abdullahi Ali محمد عبد الله علي محمد هي انت سنه شرتها aduu 25 meelaha halkan hawshaad qabsatay maxay tahay injineer kana shaqeeyaa injineer Muuse makaan ku xigeenkana macna injineerku wuxuu ii diro baan u qabtaa marka aduu idoo soo fur halka uu soo furaa meesha xir waa u xiraa laakiin runtii markii aan marka hore aan meesha ima aqoon malayn laakiin aqoon aad u sareysan leeyahay waa la igu aaminaa waa la iga tagaa meesha ayda inta la dhibo qalab gaariga noocaas cagafta noocaas soo habay وسوق على تراثون والله ما شاء الله إلهي ما يسكت سو رجاك قبطان وضد إني حوشي دو إن شاء الله سيدك دقول ما عندهم إن شاء الله وضدوا ويفي عنت هاي
way socotaa 3 bilood baa hadda 30 kilomitir la maraya insha Allah waxaan malaynaynaa in sanad bayna ku qaadan doonin sanad bayna ku qaadan doonto insha Allah haddana qalabka noo socdo hadda halda kaaga baashaas naga xun waa sawirta haantaas kaliya haantaasna odayaashaan u sheegnay haantaan ka bedelanaynaa ama lama yari noo keenayaan anagu waxaan rabnaa wadada inay furto mustaqbalka baa ay farsama meesha u nimid meesha ma waxyaalo badan baa iska jira laakiin ma doonayna shaqan doonayna سيستك waxaan maanta soo booqanay wadada Ceeldaahir Ceergaabo waxa weeye meel fiican bay maraysaa waxaan la kulnay injineeradii wadada dhisayay qaybtood iyo waxa weeye dhammaan farsamayaqaanadii shaqaalihii wadada waxay noogu warbixiyeen si fiican iyo meesha sida ay wax marayaan waa u jeedaan ciidda iyo boodhka iyo meesha ay taagan yihiin iyo waxa weeye dhulka fuulxumadiisa ma suu eegyahay xaaladda adag oo abaareedna waa lagu jiraa oo wada ogsoonahay waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wadada tani ma aha wada dad khaas ay leeyihiin ma aha wada hal gobol kaliya anfacaysa ma aha wada Ceeldaahir iyo barbaran kaliya anfacaysa Ceergaabo waa wada ay yeelan doonaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan marka waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haday madax yihiin haday isma yihiin haday culimada yihiin haday dhalinyarada yihiin haday ururada haweenka yihiin meel kasta ay dunida ka joogaan inaanay ka leex jeclaysan point 1 ku waa lacag point 1 0.01 waa 2,000 shilin anfacaysa wadadaas akoon guud bay leedahay akoonkeeda guud in loogu soo wada diro waxaan baaqayaa dhalinyarada waxa weeye dalka wuxuu baratay ee firfircoon ee waxa weeye qaybtood aanay shaqeyn ama qaybaha shaqeeya waqtiyada ay fasaxyada galaan inay yimaadaan soo booqdaan arkaan xaaladda dalka ka jirta iyo sida ay wax yihiin kaliya lacag kaliya looma baahna xoogiina xitaa waa loo baahan yahay ragiina waxa weeye bartay wadooyinka kuwiina gaadiidka bartay gaadiidka idin baahan kuwiina maamulka bartay inaad maamushaan waxaasa idin baahan marka waxaan idinku baaqayaa meel kasta ummadda Soomaaliyeed ay joogto wadada tan in si guud looga wada qayb qaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida loo qaracay in la arko muhiim hadda istaagto aan halka aan boqol ku socdo soo noqdo didibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhalinyaha kacotoosa didibkii xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dawrtada ka weynaada dheefaysta didibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo nabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay California Dayton Minnesota soo dhaafa daawadayaal qaybta quality controlka u qaabilsan ama la socota sida ay muhiim u kala yihiin iyo sida u kala fiican yihiin ciidaha ciida kala duwan lagu dhisayo wadada Ceeldaahir engineer Amin ayaan mar kale ila jooga engineer halkan bal mashiinkan nooga sheekay mashiinkan waxa weeye oven dry waxa lagu ogaado waxa lagu qalajiyaa ciida halkan waxa weeye quality controlkii waa laboratory-gii ciida lagu baarayay waxaanu qabanaa 3 shaqo oo kala duwan shaqooyin badan oo noo harsan baa jiro oo bituminkii marka la keenay aggregate-kii jaygii hadda waxaanu baarnaa natural ground-iga ciida hoose marka hore ciidada caadiga ah naturalka
tayada ay leedahay ma la qaadi karaa iyada ma lagu garaaci karaa natural groundiga awoodda uu leeyahay baan ogaanaa waxaanu kaloo sameynaa waxa la dhaho baro bit ciidan aan soo qaadan doono ma tahay ciidii wadada ku habooneed oo waxa la ogaanayaa quality ay leedahay hadhow si laayarada loogu go'aamiyo inta wadadu laayar ku leekaanayo waxa lagu ogaanayaa ciid haday tahay ciidu ciid jilicsan waa la iska deenayaa haday tahay ciid adagna iyada la isticmaalayaa halkan waxa yaala miisaanada ciidda lagu miisaamiyay halkan kale waxa yaala sieve analysis-ki halkan waxa inooga muuqda CBR test-gi oo lagu ogaanayo bearing capacity-ga ciiddu ay leedahay kala bearing capacity-ga ciiddu ay leedahay waxay hawl galaan aroortii iguna 6da shaqada intaan la qaban bay ka hormaraan waxay sii diyaariyaan ciidii la dhigayay waxay kale oo qabtaan quality wadadana waa control-aan waayo wado aan quality lahayn in ciid la iska dhigo dadka wax loo madoobeeyo ma aha waxa weeye wadadan quality-gu waa meesha ugu muhiimsan boontiga laga duulayo waa wado quality leh dadkana qanci doonta waxyaabo badan baad sheegtay hadda si qurux badan hadda dhowr ciid baan ku arkay meeshan yaala ciidan xagee laga keenay marka xagee ciidan oo kale xagee ka soo qabateen ciidan kale waxa laga soo qaaday site-kii baa la tagay ciid baa laga soo qaaday ciidaas baa la testigareynayaa iyada la baarayaa iyada la fiirinaya miyaa mishiinka lagu shubaya waa la baarayaa qaybaheeda qaybta wadada ugu haboon intay biyo cabi karto intay biyo hore ku jiray iyo awood ay yeelanayso iska celin karto marka qalabkan yaa idigu saaciday isaga qalabkan wuxuu ka mid yahay qalabka wadada waxa laga soo gaday mashruuca okay waaye maxaa kale qolkan yaala oo muhiim ah waxa kale yaala qolkan qalabkii CBR test-gi oo ciidda baari doona awoodooda waxa yaala sieve analysis-ki oo ciidda lagu shaandheynayo waxa yaala oo kale adarba limit-ki aad baa mahadsantahay idinka نقول لك fadhadadayo cayaarta daruura ku soo dhoolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena dan kastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaarta daruura ku soo dhoolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena hoy dhaliyaroy toosa si waliba sii dhaanteeye ilaa waadu dhalateene dhaxalkiini bayaane dhulka hooya soo aada qaleecada ka jira beesha hoy dhaliyaroy toosa si waliba sii dhaanteeye ilaa waadu dhalateene dhaxalkiini bayaane dhulka hooya soo aada qaleecada ka jira beesha marka dhabidabteed gaadho marka tala dhanaanaato markuu dhaanku iman waayo dalal kale dhex joogooda duumaha saliido
halbeen